cawska habdhaqan cusub oo lagu ilaalin karo nafaqada iyo kaydinta cawska. cawsku wuxuu ka mid yahay raashinka ugu muhiimsan ee xooluhu ka helaan nafaqada. hase yeeshee beerista, goynta iyo kaydinta cawsku ma ahayn mid dalka oo dhan ku baahsan. sidaa awgeed waxaa laga maarmaana in loo meeldayo farsamooyinka casriga ah ee lagu xoojinayo tayeynta iyo tirada wax soo saar ee cawska. filimkani wuxuu iftiiminayaa iskaashi qayb wadaaga oo ka dhaxeeya Candlelight iyo USAID oo ku saabsan kobcinta dhaqaalaha. mashruucaas oo ujeedadiisu ahayd in wax laga bedelo farsamooyinkii hore ee cawska lagu beeri jiray ama loo kaydin jiray ama loo maarayn jiray. sidoo kale waxaa la baray habka saxda ah ee loo beero cawska, sida loo gooyo ee ku habboon, xidhxidhkiisa iyo kaydinta cawska oo faa'iidooyin badan u leh nafaqada xoolaha. ugu horrayn balaynu wax ka ogaano habka xoolo dhaqatada iyo beeralaydu cawska ay u goosan jireen ama ay u ilaashan jireen. waxaan u ilaashan jirnay oo beeran jiray berigii hore cawska waxaan dhigi jiray tuurar meel aan dhigi jiray oo cidla ah markaan cawska ka gurno beerta waan tuur jiray baad raar baan u sameeyay jiray raar baan saaraa raarkaas uu deetana caws ku cadaan jiray. markii hore waxaan dhigan jirnay cawska meel bacadkaas wuxuu nagu keeni jiray dhibaato badan oo imika aanu ka soo gudubnay wuxuu nagu keeni jiray xoolaha roob baa dibadda naga heli jiray wuu isbedeli jiray wuu madabaan jiray xooluhuna may cuni jiray inta badan ama wixii cunaa dee waxay ka qaadi jirtay ama caafimaad darro dee xoolaha u keeni jireen xanuun baa nagaga dhici jiro dee dhaqaalaha hoos buu dhici jiray. axmed ibraahim warsame wuxuu ka mid yahay howlwadeennada mashruuca isla markaana aqoon dheer u leh dhirta iyo baadka. wuxuuna ka howlgalaa hay-adda Candlelight. waxaanu wax ka weydiinay marka la rabo in la beero cawska halkee ayaa laga bilaabayaa, se maxaa la gudboon qofka raba inuu beerto caws nafaqaysan. stages kala duwan ayuu ku maraa. for example markaan tusaale ka soo qaatay iminka beertan aynu dhex joogno oo kale markii ugu horreysay waxaanu bilownay inaanu ka shaqayno diyaarintii dhulka inaanu gallo. taana waxaa ka sii horreysay weliba inaad markaad inaad dhulkii xulato inaad xulato oo ay ismaaj karaynayaan ama ay runtii dhul iyo daaqa cawska aad wada iyo dhulku inay leeyihiin kuwo isku habboon inay yihiin. den marka aad dhulkaa doorato waxaad ka shaqaynaysaa dhulkii land preparationkii marka aad samayso ee aad dhulkii diyaariso waxaad haddana u xidhxidhaysaa dhulkii balootiskii yarnaabad xidhaysaa ee aad cawskaaga ku beeri lahayd. markaad guud ahaan diyaarsato haddana waad sii kala xidhaysaa, sii qaabaynaysaa. dhisaankii marba aad doonaysay nooca aad wadataa ku habboona ayaad usii samaynaysaa. xulista dhulka, diyaarintiisa, nooca cawska iyo kala qaybintiisa waa tallaabada koowaad ee laga rabo qofka beeraya cawska. xulashada cawska noocyada ugu fiican iyadoo la eegayo adkaysiga ay abaarta u leeyihiin, la qabsashada dhulka lagu beerayo iyo nafaqada ayaa ah tallaabada ugu muhiimsan ee lagu heli karo caws tayo leh. kadib marka lagu rido abuurka waxaa laga rabaa beerwalaha cawska inuu u fiirsado habka loo waraabinayo waxtar u leh cawsku inuu soo biqlo ama aanu xumaan abuurku. beerta uu ka baxaya cawsku waxay noqon kartaa beer roobaad ama beer ceel leh oo biyaha lagu soo saaro gamcaha ama mashiin. sidoo kale waxaa lagu waraabin karaa cawska haddii ay beertu durdur leedahay. taa macnaheedu wuxuu yahay inaanu cawska u baahnayn kharash badan oo uu ku baxo waraabka, balse waxaa muhiima haddii la isticmaalayo waraab gamceedka in laga digtoonaado inaanu biyuhu soo saarin abuurkii lagu riday. kobcinta iyo tarminta abuurka waxaa ka horeeya in la hubiyo inay ciiddu aad u jilicsan tahay oo islamarkaana heshay bacrimin ku habboon sida digada oo kale. haddaba marka uu biqlo abuurku waxaa habboon inaad tallaabooyinkan aad qaado si aad u hesho caws nafaqaysan. abuurkii biqlay marka uu gaadho heerkii ku habboonaa ee lagu abqaali lahaa waxaa loo wareejinayaa xiryihii loogu talagalay. marka uu soo biqlo ayaad bilaabaysaa ilaa maalinta aad waraabiso ilaa maalinta uu ka qaangaadhayo maraaxil kala duwan buu marayaa. ilaa marka uu biqlo ama germinationka xilli walba marxaladda uu marayo inta uu koray siduu u kala dheeraynayo xilliga uu ku qaangaadhayo intaa waxaad ku samaynaysaa recording ama waad qoraysaa marba marxaladdu marayo. waxaa intaa xiga
cawska marka uu qaan gaadho ama uu gaadho xilligii la jari lahaa waxaa habboon inaad isticmaasho qalabka loogu talagalay in lagu jaro cawska. intaa kadib waa inaad qalajisaa cawska maalin ama laba kolkaana loo diyaariyaa sidii loo xidhxidhi lahaa oo iyaduna u baahan farsamo. kadib marka uu qalalo cawsku waxaa loo adeegsanayaa sanduuq loogu talagalay in si sahlan cawska loogu xidhxidho oo waxtar u leh kaydinta cawska. sanduuqani waa mid farsamadiisa lagu sameeyey dalka oo aan dibadda laga keenin waxaana laga heli karaa xafiiska Candlelight ee magaalada Hargeysa. xidhxidhida waxa la socota maaha inaad xidhxidho oo bannaanka ka tagto. xidhxidhii markaad cawska xidhxidho ee sidii ku habboonayd u xidhxidho waa inaad meeshii ku habboonayd dhigtaa. wayna dhammaystiran tahay oo kaydintii la socota. laakiin haddaad xidhxidho oo bannaanka ka tagto dee taa laftigeedu iyaba maaha sidii ugu habboonayd maaha. faa'iidooyinka kaydinta cawsku waxaa ka mid ah ilaalinta nafaqada cawska. goobta lagu kaydinaya waa meel xidhan oo ka ilaalinaysa roobka, cadceedda iyo haddiiba beerta uu dabqabsado waa meel uu ku badbaadi karo cawskii la soo gooyey. waxaa kaloo muhiima cawska marka la rarayo ee la geynayo suuqyada qaabkan waxaa lagaga raystay cawskii badnaa ee ku khasaari jiray jidadka waaweyn. taasna waxaa sabab u ahayd xidhxidh la'aanta cawska. jaamacadda Burco ayaa ka mid ah meelaha lagu soo bandhigo laguna baro ardayda dhigata aqoonta xoolaha faa'iidooyinka cawska sida caws suudaaniga iyo cawsaska kale ee wadaniga ah ee loo yaqaan iyagana gudoomaadka, baldhoole iyo dareemada. beertan sida loo beero training baan ku qaadanay hay'addan Candlelight koodii waxa kamid ahaa ardaydii seminaarka lagu siiyay si calafkan xoolaha loo beero. beertan waxaan ku beernay cawskan imika aragtaan ee la yiraahdo Sudan grasska. markii hore waxaan naloo keenay biqilkii waxaan loo keenay maxay tolay seedkii baan la tusay waan soo qaadnay waxaan la tusay sida marka hore beerta maxay tolay loo faadho maxay tolay loo jeexo. markiina la tusay agabkiina loo keenay waan jeexnay qashinkii iyo qoriyihii baan ka dhex ururinay. habkan loo dhaqaaleynayo cawsku wuxuu xambaarsan yahay faa'iidooyin badan oo dad iyo xoolabadani ugu jirto. faa'iidooyinka uu habkani soo bandhigayo waxaa ka mid ah tayada cawsku uu leeyahay xoolaha taasoo faa'iidadeedu u soo noqonayso dheefsatada cawska, inay yarayso dabargo'a cawska tayada wanaagsan, kaydinta cawska oon u baahnayn baaxad dhuleed oo weyn. mashruuca kobcinta dhaqaalaha ayaa dad badani ka faa'iideen, wuxuuna ahaa mashruuc wax badan ka bedelay bulshada beeraleyda habdhaqankii hore ee cawska lagu beeri jiray. wixii macluumaad dheeraad aad u baahato kala soo xiriir xafiiska Candlelight nambarada ku muuqda ama soo booqo bogga internetka ku leedahay www.candlelightsom.org.